xaliima maxamed xaashi waxaan ku noolaa baadiye oo taraka gowyaheeda xoolo dhaqataan iska ahayn maxay ahayd hal wiil aan dadka dhalay ilaahay weynaa umbaa amuursado sababtaasaa dhacday waxaa ilaahay ku sababay diyaaradihii Kenya diyaaradihii dadka duqeynahayay geel buu la joogay asagii adeerkii bay ahaayeen oo macnaha adeerna waa dhaawacmay xamar baa loola cararay wiilkana hilibkiisa waxaa lagu aasay baar dheera ma garad maxay ahayd asagii markuu dhinto la waayay xoolihii asagii bay raaceen xoolo ma jiraan maxay ahayd dar ilaahay baa gurigaas dar ilaahay baan u degan biyo ma bixinna kira ma bixinna dadkanaga ehelku baan iskala joognaa oo iyaday oo waayeel ahna waan hayaa waad garad wiilkayga 14 sano jira 14 sano macallin buu ahaa 14kii boqolkaan bar ma garad baarigayga buu ahaa habeenkii markuu aan seexda oo xaafadda jooga waligay boggayga inuu ku seexdo ma ogey xagga waligay ma seexan saanu gacantayga hayn jira waad garad Soomaa maxay ahayd haddana alxamdulillah nolol fiican baan nool ilaahay bay mahad u sugan wuxuu ilaahayna siiyaan cunaa waad garad marka arinta saasay ahayd anigana caafimaad darra ila daristay markuu wiilka dhintay caafimaad darra weyn baan dareemayaa madaxa liiga haya habeen ma seexda alxamdulillah ilaahay baa dadka wuxuu dhigay xaliimay hadda maalinka maxamuud uu dhintay aadna waalan alxamdulillah ka saxan ilaahay baa laha naftiisa ani ma lahayn ilaahay galaaba awsada ilaahay baana ku mahadiya waana qadar meeshii ilaahay la jeclaado in ilaahay ii mari ilaahay meeshuu la jeclaado iyo ilaahay ii mari miraha jannaad buu ii gurayaa marka saqiirkay aqara inuu ilaahay ka dhigo oo ilaahay uu iga habaabin faatixada ii maraan dhig qof igu soo hadal qaadaba marka arinta horta saasay ahayd haddana meeshaan ku noolnahay gurigayga soo geed loo saaray oo loo